dhinaca Asia wadanka Malaysia oo kamid ah wadamada Soomaalida ugu badan ay wax ka barato ayaa waxa la soo sheegayaa inay ka dhacday munaasabad aad u ballaaran oo lagu xusayo kowda Luulyo. munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay boqolaal jaaliyada Soomaaliyeed ee reer Malaysia halkaasi oo magaalada Kuala Lumpur ee caasimadda wadankaasi si weyn looga oogay munaasabad ballaaran oo kowda Luulyo lagu xusayay. Axmed Ashari ayaa warbixintan ka soo diray Kuala Lumpur. xaflad si aad loo soo agaasimay isla markaasina lagu maamuusay 52 guuradii ka soo wareegatay markii xornimada qaadatay koonfurta ayna midoobeen labada gobol ee waqooyi koonfur ayaa lagu qabtay jaamacadda islaamka ee wadanka Malaysia. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Malaysia, jaaliyada Soomaaliyeed, aqoon-yahano iyo guud ahaan Soomaalida ku dhaqan wadanka Malaysia iyagoona u dabaaldegaya kowda Luulyo oo ah maalin qiimo badan isla markaasina ay midoobeen labada gobol ee waqooyi koonfur. dhulka Soomaaliyana laga taagay calan astaantiisu tahay jiritaanka iyo madaxbanaanida Soomaaliya. guud ahaan Soomaalida ka soo qayb gashay xafladan ayaa waxa wajooda ka muuqda sidii ugu faraxsan yihiin in la weyneeyo lana xuso kowda Luulyo oo ah maalintii ay midoobeen labada gobol ee waqooyi koonfur. munaasabadan ayaa waxaa hadallo qiimo badan ka jeediyay safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Malaysia, Ambassador Atoosh iyo qaar ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay kulankan. annagu qaladaad badan baynu leenahay daan Soomaalinahay ama dawlad aan nahay. maanta waxa weeye waa inaan is xasuusinaa, istusnaa, isu tilmaamnaa tallaabada wanaagsan ee hore loo qaaday ee dawladnimada ah. Soomaaliya maanta waa dawlad horey bay u socotaa, soo noqon mayso. qof waliba oo Soomaali ah maanta wuxuu aaminsan yahay inuusan qabiilku waxba ahayn. qof waliba oo Soomaaliya wuxuu aaminsan yahay inay dawladnimadu tahay wadada qura ee hore loogu maro. wadada qura hore loogu maro taasoo ah dawladnimo ayaa waxay ka talinaysaa inaanu ka tashano aayaha ubadkeena ay u sii gudbiyaan ubadkooda. wadanku waa nagu amaano, diintana waa nagu amaano oo waajib waxa nagu ah inaan labadaba difaacno. dhaqdhaqaaq goobnadoon ayaa wuxuu bilowday markii dagaalkii labaad laga soo laabtay, waxaana bilaabay dhalinyaro Soomaaliya oo aan tacliin badan lahayn ama mid maadi ha ahaato ama mid diini ha ahaatee. waa la socotaan meesha ay gaarsiiyeen goobnadoonkii 13 nin oo madaxda u ahaa ninka la yiraahdo ياسين حاج حسن وها ماشي اي غارسيه ولا سعوديه waxa ka dambeeyay oo la soo gaaray goobnimadoonkaasi inuu gaarsiiyo ummadda Soomaaliyeed in laba gobol oo ka mid ah gobolladii Soomaalida u qaybsanayd inay 60kii isugu yimaadaan dawladnimo taab ah. الرحيم صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan leeyahay ciid wanaagsan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. runaantii aniga iyo intaan ugu horeyno waxaan ka mid nahay inta aan xornimadana soo gaarin, dawladnimadiina aan soo gaarinin, marka meel dhaxan ku jirnaa laakiin haddana wali rajadayadu ma xuma. insha Allah ilaahay waxaan uga rajaynaynaa Soomaaliya inay mustaqbal fiican ay u dhalato. waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel kasta joogtaan. bahda saxaafadana aad baa ugu mahadnaqayaa. aniga Axmed Ismail Axmed Caawa aad ugu faraxsanahay xafladan ka soo qayb galay. waxaan uga hambalyeynaa ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan. hambalyo mar labaad iyo mar saddexaad. waxaan xusuusin mudan cawada ma dabaaldegnaa oo waxaan u dabaaldegnaa maanta qiimaha leh ee ku tusinaysa wadaadtinimada iyo dadnimada iyo jaceylka. mise waxaan ka murugoonaa wixii dhacay ee ahaa maaragtay xukunkii military ka dambeeyay qabqabladii isbuursashadii iyo wixii la mid ahayd dhalaankii maaragtay ku baaba'ay wadamada qurbaha iyo badda iyo wixii la mid ah. mise waxaan u dabaaldegnaa
habeenkii ugu horreeyay aan haysano safiirka ugu horreeya Soomaaliya ee la soo magacaabay waddanka Malaysia iyo isbedelada positive-ka ee waddanka ka dhacaya maanta sidii maanta inaan haysano waddankan ka duuleyso diyaaradaha Yurub diyaaradaha ugu qiimaha qayaha badan sida Turkish Airlines in waddankii maanta economic iyo real estate boom uu ka jiro oo dhammaan qurbo-joog ay soo noqonayaan sawiradii liida iyo curuba iyo meel walba ay soo ifayaan alla ila dadkan qurbaha jooga maseer fara badan in gelinaya munaasabadan loogu dabaaldegayo kowda luulyo ayaa ah tii ugu horeyso safaaradda dowladda ku-meel gaarka Soomaaliya ay ka furatay dalka Malaysia ee ka qayb qaadato waana 52 guuradii ka soo wareegatay markii xornimada ay qaadatay koonfurta ayna midoobeen labada gobol ee waqooyi iyo koonfur Axmed Abuukar Ashari telefishinka caalamiga Somali Channel Malaysia